halkani waa xarunta Wajir Rehabilitation Center. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. xarunta Wajir Rehabilitation Center waa takhasus dheeri ah u leh baxnaaninta bukaanada maandooriyaha isticmaala iyo kuwa maskaxda ka xanuunsan ayaa waxa ay bukaanada xanuunsan u fidisaa daaweyn iyo daryeel heer sare ah. xarunta oo aan dib u booqanay ayaa waxa aan la kulannay qaybo ka mid ah bulshada oo halkaasi ku sugan isla gudaha xarunta oo aan kula kulannay macallin Maxamed oo maalmadow inankiisa xarunta keenay aanna wareysanay ayaa waxa uu inoo qaadaa dhigay xaaladda inankiisa iyo isbeddelka uu kala kulmay. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa macallin Maxamed Macal Cali meeshan Rehabilitation Wajir waa meesha dadka dhimirka lagu daaweeyo waana isbitaal waana lagu tufaa waana isbitaal ana waxa iigu jiro wiila iigu jiro maanta markaan keenay waxa saynin xirxiran haddan alxamdulillah waan dukuna oo maartay ii sheeg hadda nin xanuunsan oo ekeen waay taasna waa ilaahay mahadiis walaalahay waa ku mahadsiin arintaas iyadoo iga qaabileen. macallin Maxamed ayaa dhanka kala carabka ku dhuftay inuu jiro culays dhanka qarashaadka ah uusanna awoodin bixinta qarashka xarunta rabana inankiisa inuu u caafimaado waxa uu dawladda iyo madaxdaba ka codsaday inay garab istaagu muujiyaan. waxa culays ugu ah qarash badan liigu yeeshay qarashkaas oo maartay sheegan in ninka barwaleynaya aan ahay nin qarash weyn haystamaahi maan waxa maana way marka qarashka liigu yeeshay aad iyo aad igu cuslaaday walaalahay marka lacag ay rabaan waxaan ka codsanayaa dawladda accountiga walaalahay MBLka MCLka qarashkaas inay wax naga qabto iga qabtaan oo i saacideeyaan. sidee ku ogaad xaruntan inay jirto xaruntan inay jirto waxaan ka war helay ninkaas nin xirnaas ay muddo awal horan meel kale aan ka keenay maartay muddo badan ba way ugu waalnay meeshaan information-keedaan helay in maartay arintan ay jirto waan helay information-keeda waayo qof waalan qofkii la xiriira wax waa maartay information maas kale meel waa muraadina marka meeshaan information-keeda waan helay haddana bishaan la afaraas ku jira marka walaalay waxaan ka codsanayaa in qarashkaas aad ay ugu batay aan tabar maaya maartay in qarashkaas li saacideeyay ayaan ka codsanayaa dawladda tan walaalahay ama MBA noqdaan ama accountiga noqdaan walaalahay waxaan ka codsanayaa qarashkaas inay i saacideeyaan maadaama walaalahay lacag badan ay ugu yeesheen lacagtan hadda meel aan ka keenan haynin. mar aan wax ka weydiinay furitaanka xarunta cusub ee u gaarka ah dumarka macallin Maxamed ayaa tallaabadaasi aad u soo dhaweeyay. sideed u aragtaa in xarun kale oo dumar ay ka bilaabaan gudahan maadaama hadda qabanqaabada ay socoto diiwaangelinta la bilaabi rabo sideed u aragtaa? waa aad ay u fiican tahay aad ay u fiican tahay hadda tan waa rag laakiin tan dumarkana waa la kadalika aad ay u fiican tahay waa arin aad u fiican marka ilaa laba jirka waxa la jiray hadda waalada Wajir waa meel dadka dhimirka meesha ugu badan waaye markaas yeeshee malaha wax dad saacideeya ama dawladda xageeda aniga maan arkin ninkan meel badan aan geeyay haddaan ka hor sidii jiraankeena kala hata Soomaaliya maran geeyay madheera maran ku soo celi marka ma taasna waxa uu daliil maartay mukhadaraadkan badan oo maartay sheeg meeshan dhulka in laga hela maartay mukhadaraadka saaxiib mukhadaraadka cunugaas iga noqday marka waxa salaayna oo maartay u sabab u asbaab haddana meeshan keena waxaad laayna ku yariiray hooyadii aniga hata waa ila dagaala waan ku hayn way cidi waa ku hayn way
marka sidaa darteed meeshaan waa keenay hadda waa nin dukunaa waa nin fiican alxamdulilah ilaahay ku mahadsan laakiin waxaan culays ugu hayaa qarashkii asaga hadda liigu leeyahay marka walaalahay waxaan ka codsanaa inay saacideeyaan xarunta bal ka waran in wajeer ay iyada kaalin sare kaga hayso maadaama dadkii maskaxda ka xanuunsanaa dadkii muqaadaraadka la dhacayay iminka halkan lagu dabiibayo cunooyinkii jiifkii qabayskii wax walba ay helayaan bal ka waran ma guul wajeer usoo hoyataa mise waa guul wajeer usoo hoyatay waxa weyn waayo qaar badan oo ka baxayaan arkay anigan hataa shalay daraad waxaan arkay maama cunugeeda as dhahay ii sheeg meel oo wataatacsan oo la wareersan wiilkayga waxaase dhahay dhaaday 6 bir waxaan ku fikiraysan aad aan kugu dili lahaa waan isku nahay ana markaan warka aan arintaas aan maqlay maamadaas ay tiri aad iyo aad aan xanuunsaday marka waxaan ku yiri waxba maarta dad ninkan saas ku dhahay inaas qataraad ku sugantay waxa diilay meeshan anigana ninkan aan geeyo madax loogu jiro aan geey adina bal soo arag ninkaas ka hadda la keenay maalmaas inta ku jira maamada iyada hadda aan liftaydo ay mahad celisay waxay dhahday waad maasanta macal maxamedow waan arkay meeshii maarta wax weyn waay marka ninkeena insha Allah ina soo reystaan maarta aan fila meeshan waa meel dhakhtarna tufna leh dhakhtarna as joogo marka ay sheeg waa arin aad u fiican oo wajeer kor u qaadaysa taas ayada marka walaalahay waxaan codsanaa dadkan mar sabarta aan haynin in la saacideeyo la saacideeyo taas aan codsanayaa waxaad ugu baaqaysaa waalidiinta ilmahooda ay ka xanuunsan yihiin aan ka warqabin xaruntan baaqaad ujeedinayso waxaan leeyahay arrintan waa arrin fiican waalidiinta sidaanad oo kale ilmahooda ay ka xanuunsan yihiin waa inay la soo xiriiraan xaruntan oo horta arkaan wixii ku jiri siday noqdeen maarta ay sheegay wixii ag joog siday yihiin horta inay arkaan oo isaan ku sameeyaan ayaan u sheegayaa meeshan waa in ka qarsoon tahay la soo xiriir maarta ay sheegay waa isbedeli doontaan waxaan badan oo in ku jirnaa fikri doontaan insha Allah oo arki doontaan xaruntan soo siyaartan leeyahay Cabdi Cabdullaahi oo la socday macallin Maxamed oo xarunta aan kula kulanay ayaa isagana dhankiisa inooga waramay xaaladda inanka xanuunsan oo xarunta la keenay bismillaahir rahmaanir rahiim ana xaliira Cabdi Cabdullaahi nin reer wajeer oo la qanan meeshan maanta waxaan u imaaday macallinkan walaalkay waa wiilkan ayaa ka xanuunsanay ani waxaan ogsoonay wiilkan in mandheera la tagay حتى بلد حاولك للسوء لي فإذا لقى السواي معلك هو إيشة حارون تناس إيشة حارون تنا دنا وحس إيشة شال النفط هذا وحس إيشة ويلك إن تصمد أصدقون هاي أصدمر قصود عي أياس إيشة ساك مركو وحن أصوب حن ماشانيت إن معلك وحس أباهية خرش ماشي خرش الويش مركو وحن دم عنمانت إن ماشان إمان أو ورك بحنا meeshan kharash looga baahan yahay macallinka tabar ma haya dadka kullu waa wada tabarlaan Ali ayaa aad ugu celceliyay culayska jira ee dhanka qarashka ah waxa uu codsi u diray madaxda waxaan u baahanahay MPga waje iste laga soo doortay macal gafanihi MCA wixii wajeer ku nool macal women rep wixii wajeer ku nool macallinka wiilka waa wacaynti waa samaaday الحمد لله رب العالمين سماشة إلهي الله هلا لكن تختارين في عناصر وقرآن كان صارتي داونا سيسي وحي أدداشي معلك نكي حقوق سيدي يسكدو معه والسمادي مركو وحلو باهي خرج معلك وحان ربا إن للساعدة معلك كان لو ددالة إمبيالا لدورتي إمسيالا لصو دورتي قفنا لنا مدحوينا لنا marka waxa way dadka jirin in la kaalmeeyo ay ku jirta hadii dadkan marka hore meel loo dhisin ayaga dadka xanuunsan aan meel loo dhisin dadka dhaqan cilinka lagu soo binaba aan meel loo dhisin waxa wanaagsan in dadkii imaadi oo cilmiisa la imaadi in la saacideeyo oo wixii kharash la taaran kara la taarta marka macallinkan waxaan rabnaa in la saacideeyo MPyalki MCyalka gafanaha women rep dawladda dhan waxaan rabnaa ninkan kharash lagu yeeshay معلك خرج كان لا على خرجنا ما هي مقالة وجير وحكي كجير نول بأكسوي مقالة وجير وحكي كجير نول بأكسوي وحن أبها النهاي ورمان تماشان وإماني معلنك إلا ساعدين أو وحي خرج أو لقب بحي لقب بحي أنت أصلا أبهنا مر أن وحكا ويديني حارنتا أيا وحا وهذا الكيس ودقي سيدتن أبا حارنتا كورن حارنتا وحواي أنا ورتو الممكن لكن لكتا وان كدرجنا لكتا كدرجنا ويل كان مد أركاني ويل كان وحيس هاين وان أوجه
haddana waa arkay xaruntan waxaan leeyahay ninkii warkeeda hay ha soo doono ha u imaado ninkii warkeeda haynana ha ka war doono xaruntan waa xarun lagu caafimaadka rabbiga bixi qof ma bixi laakiin maxay yeelay meeshan waxay leedahay takhtaran arkaya takhtar dhiig baaray leedahay takhtar kaadi baaray leedahay wax walba baaray leedahay haddana diinkiina waa loo hayaa haddana waxaa ka sii daran cuntaa la siinhayaa dadku waa loo qabaynhayaa saabuuna loo dhigi wax walba loo dhigo loo qabaynhayaa dadkii markaan dhaqin qofkii mugta intaan sigaar cabay oo balaayo cunay haddii intaa lagu celiyey oo meeshan cunto lagu sii oo lagu daaweey wixii waa ka transuula ma fahmaysaa marka wixii waa ka baxa marka xaruntan waxaan u arkayaa meel dhaqin cilis ku wanaagsan ayaan u arkayaa assalaamu calaykum ka waran iminka oo ay furayso xarun sidoo kale dumarka iyagana loogu talagalay ma dhihi karaynaa waa guul rajab usoo heetay xarun dumarka u gooni ahaa xarun dumarka u gooni haddii la furo waa guul maahan waa guul saddexaad waa guul afaraad guusha ugu wanaagsan waaye xarun dumarka haddii la keeno waa guusha ugu wanaagsan waa wax lagu farxa waxay reewajeer dhan ku farxaan waa waxay reewajeer ku farxaan waa guul noo soo heeto waa khayr allah siyan lena dadka arintaasi soo hagaaje khayr allah siyan lena laakiin marka isaa tahayna waxaan rabnaa countiga inay dadka saacideys countiga inay dadka saacideys bilcaamaha tabar maahan ragga tabar maahay dadku waa wada jirnya dadka lacag ma haystaan xoolo ma haystaan xooli abaarta ka wada dhameys waa loogsooyin countiga waxaan rabnaa inay isbitaalada iyo dadka ay saacideys reer wajeer maxaad ugu baaqaysaa dadka ilmaha ay ka xanuunsan yihiin daroogadii ay ka laysay xaruntiin ayaga ahaan aan wali soo gaarin maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa xaruntan ha la soo aada ha la imaada ha la iswargeeye meel kasta ha la taga wajeer district wixii ku nool inay imaadaan oo iswarsiiyaan daroogadan waana dhibtee daroogadan meeshaana looga baxaa in xaruntan la soo aadiye ayaan dadka ugu baaqayaa xaruntan allah idin soo tuso intaasaan dadka ugu baaqaya dhanka kale doctor cabdimaalig oo xarunta kalkaaliye ka ah ayaa warbixin inaga siiyey qaabka xarunta ay u daaweyso bukaanada maskaxda ka xanuunsan iyo kuwa maandooriyaha isticmaala Assalamu alaikum. Abdimalik and I'm the residential nurse, the residential psychiatric nurse that is available 24/7 in Wajir Rehabilitation Center. And in Wajir Rehabilitation Center, we really work close in ensuring that the community members at large, and not basically everyone from, not only people from Wajir County, but everyone from the surrounding and even from other counties, to visit us and have the comprehensive care for those people who are finding challenges with their mental health. Because remember, mental health is something that is so crucial when now it comes to our whole life being. Because remember, we only don't have to have the physical part of it, but we play a crucial role as well as the mental health now. And here in our setup, we have, like for me, I'm the psychiatric nurse who is here 24/7, and we also have the general physician, the consultant, the psychiatric consultant, who we do review patients with each and every 2 weeks, each and every month, and assessing the patients each and every time when they come in, and even before the discharge. And here we have helped a lot of people, because remember, it all depends on the condition of the person, and it is an individual comprehensive care that we take care of each and every person individually. And remember, in our society today, we have so many people who are affected by so many drugs. There are so many people who are affected by depression part of it, because it is not only the drugs that play a role in the mental health, even also the depression and the life challenges that we go through. So all those kinds of clients, all those kinds of people, we do come together and help them all here. And so we work as a team, and we try to help the whole community. And with programs and the initiatives that we have put in place, we are capable of doing all that, and we have been doing that. We have helped a number of people, those who have reintegrated into the community, and their mental health is now well, and they do appreciate that. And if you know of anybody who is going through the same challenges, any mental health challenge, be it you want to go and seek any advice from the counselors,
from the medical management team, then you are free to visit Wajir Rehabilitation Center for further clarification. Dr. Abdi Malik ayaa sidoo kale ka hadlay xarunta cusub ee u gaarka ah dumarka. We are also planning on opening a women facility, because remember, mental health is not a one-sided thing, but we are trying to build up another institution where now the women will be also placed in that facility, because remember, mental health cuts across, and in that facility we are expecting to also take care of those, our sisters, our mothers, and even our aunties who are having problems with their mental challenges. They are also going to be taken care of there, and I personally will be in charge and overseeing each and everything that is going there, and assure you it is going to be perfect and everything is going to align. As we have been helping our brothers over here, the same is going to be integrated on the other side, and it is going to cut across, and it is going to be wonderful. So anything that is going to help us, we have to come together. Even the ladies, they have to also get the same help. Ugu dambeyntii maamulaha guud ee xarunta Ustaad Aadam ayaa ugu horeyntii koobay waxyaabaha ay xarunta qabato iyo sida loola tacaalo bukaanada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Walaalaha Soomaaliyeed ku nool Wajir gaar ahaan townshipka soo dhawaada walaalayaal, waxa ku soo dhawaatiin Wajir Rehabilitation Center. Xaruntan Wajir Rehabilitation Center waa xarun rehab oo qofka joogo laga celinayo drugska mandooriyaha sida qaadka iyo sigaarka iyo tuwaakada iyo bangiga iyo xashiishka. sidoo kale waxaa kaloo laga celinayaa dad waxaa jira mentalka ka xanuunsan ama waalni ama ma aqaanta qofka inuu muqaadaraad ahaan isku dilo, oo muqaadaraadkii iyo qaadkii sigaarkii kaniiniga iyo wixii markuu cuno inay qaab ahaan maskaxiyan u waasho yaan la tacaalnaa. sida ogtiin walaal, meeshan waxaa weeye waa xarun boodin oo qofka saaxanayo oo laga taxadarayo securitygiisa, caafimaadkiisa, daryeelkiisa, cuntadiisa iyo caafimaadkii iyo cuntadii iyo ma aqaanta qaab walbaba qofkaas loo xanaaneynayo. Ustaadka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka waramay dhaqaatiirta kala duwan ee ka howlgala xarunta iyo bukaanada caafimaaday oo bulshada dib ula midoobay iyo kuwa iminka ku jira xarunta oo la dabiibayo. Xarunta waxaa soo gala dhaqaatiir kala duwan sida dhakhtarka mentalka iyo dhakhtarka psychology-ga iyo dhakhtarka naaska yaa soo galaan. dhakhtarka naaska 24 hours ku jira, dhakhtarka mentalkana every 2 days wuu soo galaa oo dadkii ayuu ogaadaa xanuunkooda iyo qaabkooda. waxaa kaloo jooga dhakhtar oo psychology oo ma aqaanta qofkan la sheekeysanayo la hadlayo marmarna la ciyaarayo yaa jira. walaalayaal, xaruntaas ilaa hadda waxaa ka baxay dad fara badan oo ku caafimaaday oo caafimaad guud Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka siiyay kasoo xaruntan caafimaad ay ka heleen iyo daryeel wanaagsan. waxaana hadda ku jira dad fara badan oo ma aqaanta xarunta wali xanaaneeyo oo wali ku jiraan meesha insha Allah si boodin ahaan ugu jiraan. dadku waxa u fiican in qofka ilaa muddo waxa uu yar ilaa 6 bilood ilaa 3 bilood inuu ku jiro, qaar hataa sanad way ku jiri karaan. adi qof walba iyo karaankiisa meesha yaa qofkaas ku jira insha Allah ta'ala. ugu dambeyntii waxa uu hadalkiisa ku soo afmeeray war wanaagsan oo bulshada ay wada sugaysay, sida uu hadalka u dhigayna ay ahayd codsi ka yimi bulshada iminkana ay u tixgeliyeen ayna socoto diiwaangelinta.
waxa uuna guud ahaan bulshada ka codsaday in ay ku soo dhawaadaan xarunta Wajir Rehabilitation Center. walaalayaal waxaan ku soo darnay xaruntan qayb haween ah ayaan ku soo darnay oo dumarka u qaabilsan qaybtaas waa qayb ayadana boodin ah oo haweenka yaan ku soo darnay haween fara badan ayaa jira oo qaadka iyo sigaarka iyo tubaakada iyo bangiga iyo xashiishka cunayaan arrintaana bulsho badan ayaa nala soo wadaagtay oo dhahday qayb dumar ee ku dara dadkii codsigooda waan suubinay waxaan ku darnay qayb haween ah ayaan ku soo darnay waxaa kaloo haweenkaas haddii qofka uu mentalka ka xanuunsan yahay sida ogtihiin ragga iyo dumarka isku mid ma aha dumarku waxaa weeye raggu waa la iska sii dayn karaa laakiin dumarku ma la sii dayn karo waa cayb qof walaalkiis ama walaashiis inay meelaha warwareegto oo ama kan tuwaakada iyo qaadka iyo sigaarka oo cunto waa fadeexo weeye marka dad fara badan noo imaadeen oona dhahayn qayb dumarka ku dara dadkii codsigaas ayaan u tixgelinay waana ku darnay hadda qayb dumarka waxaa kaloo jira dumar maskaxiyan u xanuunsan ayagana waan qaabilayna hadduu ilaahay yiraahdo walaalayaal ku soo dhawaada Wajir Rehabilitation Center qaabilitaanka dumarku way socotaa yaa laga horbuuxin hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah taala lambarada shaashada ku qoran ayaa kala soo xiriiri doonta hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah taala waxa baaq u dirayaa dhammaan umada ku nool Wajir County dadka ku nool ayaa baaq u diraya qaar ahaan townshipka waxaan leeyahay ku soo dhawaada Wajir Rehabilitation Center gamca furan ku soo dhawaada insha Allah taala halkaas waxa gamca furan inuu soo dhaweyn doona hadduu ilaahay yiraahdo shaqaalaheeda ha ahaado dhakhtarkii ha ahaado sheekhi quraanka baraya dadka ama quraanka saaraya ha ahaado qofkii ma qaanta security ha ahaado managerkii dhammaan gamca furan bay ugu soo dhaweynayaan hadduu ilaahay yiraahdo soo dhawaada insha Allah taala wabillahi tawfiq. Si kastaba ha ahaatee xarunta Wajir Rehabilitation Center oo horaan aad ku ogeydeen in ay qayb ragga uun kaliya u furnayd ayaa iminka ku soo dartay qayb u gaar ah dumarka oo iyagana daryeelkooda ku aadan caafimaadka maskaxda iyo isticmaalka maandooriyahaba halka loogu dabiibi doono.